السلام عليكم أصحابتي qaaliga ah meel walbo adduunka aad ka joogtaan waxaan idin rajeynayaa bashbash iyo nabad iyo barwaaqo kusoo dhawaada janaalkeena Aisha's Cooking maanta waxaa idin wadaa pizza aad u fudud oo laga sameeyay bataati iyo ukun oo kaliya waad arki doontaa qof walbana wuu isku tijaabin karaa qof aan sameey karin malahan asxaabteyda aniga idinka hubo waatana laba xabo baradho yaryariis ah haddii aad doontan waxaa ka samaysan kartaa hal xabo bataati oo weyn laba xabo oo ukun ah meesha ku diyaarsanaya labadaas bataati waa la fiiqayaa kadibna waxa ku xoqaysaa birtaas ilaa ku masamadarnaade labadaas bataati iyo laba xabo ukun oo kaliya waxa ka samaysanaysaa ku dhaa pizza inaba aan caadi ahayn waxa kaasa waa soo hoolay sidaad u jeedaan baaquliga ku shubeynaa ay intaas kadib waxa ku dareynaa biyahaas aad u jeedaan biyaha inay ka kor maraan loo baahan yahay baradhada asxaabteyda waxaan dhigaynaa 10 daqiiqo 10 daqiiqo kadib waatana biyaha ina ka miirtida loo baahan yahay hadii kaleeto sida aniga gacanta ku yeelayo kaleeto ugu miireysa hadaa doonto shabaqa ugu miiri kartaa intaas muhiim ah biyaha dhan ina ka qalajisida muhiim ah inaad fahantaa rajeynaya channelka hadii aad ku cusubtiin subscribe-ta like-ta ha ka iloobin asxaabteyda aad baad u mahadsantiin laba xabo ukun hadda ku daraaya waad aragtaan asxaabteyda waxa kale oo ku daraaya cusbo kiisku ugu filan oo yar ku darsanaysa waxaan kale ku darayaa filfil shiidan waad u jeedaan wax yar iyadana oo qiyaas ah intaas isku qaseena kadibna bur yar hadana ku soo daraaya inta isku qasin burku waa half yar in lagu adkeeyo loogu talagalay asxaabteyda si fiican isku dhaxgelinayna waad u jeedaan asxaabteyda mar alaabtan hadii aad barataan waan hubaa biisada kale shaqadeeda inaad ka caajisi doontaan oo aad samaysan doontaan midaan aad bay anfacday runaantii birtaawadii aan dabka soo saartay saliid yar oo saytuun ah korka dhac uga siiyay waad u jeedaan buraashkaas ku marinaya waxay way soo kululaatay birta markay kululaatay kadibna waa lagu shubayaa waad u jeedaan asxaabteyda ina ka faa'iideysan doontaan rajeynayaa haduu alla raali ka noqdo soo dhawaada asxaabteyda meel walba dunida aad ka joogtaan bashbash iyo barwaaqo ku waara biidnillah wax yar kor way ka soo qalashay u jeedaan hadda waa gadineynaa hoos way gaduudatay aadna uma guban mujeedino xogaa dahabi waaye hadda doonto shiishida korka ka mari kartaa oo biyo yar ku qastay hadii aad doonto yaanyo kaligeed oo samaysan oo ku habeysana korka mari kartaa meel walba gaarsiineynaa gacanta xoogaa marada iga dhaqaaqsaneed saas darteeda uga celiyay anyway asxaabteyda waxa idin leeyahay caafimaadka cuna waxa korka ka saareyna hadda jiis waxa kale korka saareyna af Soomaali kuma aqaani mana lahan laakiin wuxuu ka samaysan yahay hilib shiidan oo dooro ah asxaabteyda waxa korka saaraya oo kale barbarooni iyo saytuun cagaaran adi hilibkaas bedelkiis waxa ku samaysan kartaa doorada caadiga ah aan naqaano ama hilibka caadiga aan naqaano ku samaysan kartaa ama malaay waxa doontaa oo isticmaali kartaa jiista ugu dambaysa hadda korka uga soo shubaya waad u jeedaan qof walba jiista sidoo uu rabo u samaysan kara hadaa rabto jiista ka buuxso ani laakiin aad ugu ma buuxinin daboolan saare waa aragtaan hadda daboolka kadib waan ka soo dajiyay dabka way bislaatay asxaabteyda inaba caadi ma idinkan ila soo tijaabiya ilmahana aad u jecel yihiin وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.